kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii murtada iyo maamaahyada. xubinteena toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa la joojiyana banaan la jiifiyana banaan. waxaa jiri jirtay in berigii hore ee aan xadaarada magaalooyinka soo biirin nolosha dadka Soomaaliyeed in culimada baadiyaha ku nooli ay ahaayeen maxkamadaha kala xukuma dadka kol ay wax soo kala dhexgalaan. waxaa dhacday waa ka mid ah waayada Soomaalida soo martay in loo ay u dhacday beer uu lahaa nin reer baadiye ah, kadibna ayaa ninkii beerta lahaa iyo ninkii lo'da lahaa isqabsadeen. kolkii muranku adkaaday waxay iskula yimaadeen sheekh ka mid ah culimada deegaanka ku nooleed. sheekhii ayaa ninkii beerta lahaa ugu warramay sida ay wax u dhaceen. sheekhii ayaa wuxuu si degdeg ah u riday xukunkii oo intuu uu warankiisa dhulka ka taagay wuxuuna ku yidhi ninkii lo'da lahaa waa inaad bixisaa intaas muggeeda oo cows ah. ninkii lo'da lahaa oo ogaa in lo'da beerta u dhacday ay sheekha lo'diisana ku jirta ayaa ugu jawaabay, hadda sheekhow lo'da beerta u dhacday lo'daadina way ku jirtay. kadib ayuu sheekhii inta uu warankiisa dhulka jiifiyo yidhi, haddaba la jiifiyana bannaan la joojiyana bannaan. waa halkii ay ka timid halku dhigga ama murtidii caanka baxda ah ee la magac baxday la joojiyana bannaan la jiifiyana bannaan.